munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay urur siyaasadeedka midnimo oo kamid ah asxaabta siyaasadda ee dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Kampala ee caasimadda waddankaasi Uganda. Haddaba xafladdaasi waxaa ka qayb galay wariyaheena Maxamed Yamani. xafladan lagu soo dhaweynayay urur siyaasadeedka midnimo oo kamid ah ururada u tartamaya inay ka mid noqdaan axsaabta siyaasadeed ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa lagu qabtay xarunta dalka Uganda. xafladan oo ay qabanqaabadeeda iska lahaayeen ardayda wax ka barata jaamacadaha dalkan ayaa waxaa sidoo kale ku wehelinayay marti sharaf kale oo ka tirsan jaaliyadda reer Puntland ee dalkani ku dhaqan. intii xafladu socotay ayaa waxaa halkaasi laga jeediyay hadallo ku aadan sida aqoonyahanka reer Puntland ee wax ka barta qurbaha ay u taageersan yihiin ajandayaasha urur siyaasadeedka midnimo uu rabo in uu dalka ku maamulo haddii uu ku soo baxo doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhici doona bilowga sanadka fooda nagu soo haya deegaanada Puntland. madaxa qabanqaabada kulankani Muuse Siciid Xasan oo hadal dheer halkaasi ka jeediyay ayaa ku nuuxnuuxsaday sida urur siyaasadeedka midnimo uu u rabo in uu dalka wax uga bedelo isla markaana wax uga qaban doono guuldarrooyinkii ay la kulmeen maamuladii Puntland soo maray tan iyo markii la aasaasay, isagoo sheegay in urur siyaasadeedka midnimo uu kaalin muuqata siiyay aqoonyahanka da'da yar ee reer Puntland ee dibadaha iyo dalka wax ku bartay, taasi oo uu sheegay in ay waa cusub u tahay ardayda ka soo qalin jabisay jaamacadaha adduunka ku kala baxsan. ururka midnimo oo ah urur siyaasadeed waa urur siyaasadeed weli waxay xisbiyo noqonayaan axsaabtu marka la ansixiyo oo xisbiyadu ay tartamaan oo ay ku kala guulaystaan. xisbiyada soo baxa ayaa xisbiya noqonaya, laakiin ilaa iminka xisbiyadu waa urur siyaasadeedo. marka xisbiga midnimo waa urur siyaasadeed mucaarad ah kaasoo doonaya inuu majaraha u qabto cayaanka siyaasadeed ee dowlad goboleedka Puntland. ururku wuxuu u joogsaday inuu matalo dadweynaha tirada badan ee ka aamusan siyaasadda, kuwaasoo aanan muxaafid iyo mucaarid midna ahayn, isagoo u adeegsanaya waddooyinka sharciga ah isla markaana xushmaynaya heshiisyada iyo xeerarka u yaalla dowlad goboleedka Puntland. ayuu ururku si ilbaxnimo leh wuxuu ugu tallaabsanayaa qaababkii uu codadkooda dibadda ugu soo saari lahaa dadkaas ka aamusan siyaasadda oo ah dad tiro badan, si markaas ay u noqdaan kuwo si xushmad leh codkooda loo dhegaysto. hadday ahaan lahayd maamulka u dhisan oo codkooda laga dhegaysto, iyo hadday ahaan lahayd xoogaga bahda caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya. 14 sano dabadeed dhismihii maamul goboleedka Puntland, inkastoo xagla badan oo nolosha Puntland ka mid ah uu horumar ku yimid, sida inagoo ka faa'iidaysanay dhismihii maamulka Puntland 98 oo intaasoo arday maanta meesha fadhida ay wax ku soo barteen haykalka meesha lagu sameeyey oo ay ka faa'iidaysteen. dhanka kale waxaa isna halkaasi ka hadlay Sheekh Maxamed Axmed oo sheegay in ururada siyaasadeed ee haatan Puntland ka curtay looga fadhiyo inay xoojiyaan ku dhaqanka shariicada Islaamka, meelna uga soo wada jeestaan qabiilka, isla markaana danta guud ay ka hormariyaan danaha gaarka loo leeyahay. maanta waxaan u baahannahay ururo nadiifa oo mabda ahaan nadiif u ah, oo qabyaaladda nadiifka ah, oo waxa weeye qoyska nadiifka ah, oo maxay haytee kooxaysi iyo jeebka inuu wax ku burto nadiifka ah. waxaan u baahannahay dad dhalinyaro ah oo aqoon-yahano ah oo garanaya xilka iyo mas-uuliyadda saaran amaama Allahi wa amaama almujtamac. ilaahay hortiisana xilka saaran garanaya, mujtamaca kan uu ka dhashayna xilka ka saaran garanaya. taasaan u baahannahay. waxaan u baahannahay in laga gudbo xaaladii ahayd Soomaaliya in wax lagu qaybsado qoys iyo qabiil iyo qabyaalada iyo 4.5 iyo xargaha shaytaan ee xirxiranay. dowladda Puntland ayaa furtay nidaamka ururada siyaasadda si looga gudbo habku qaybsiga ku dhisan qabiilka ee lagu soo dhaqmayay muddo ku siman 14 sano. waxaana nidaamka dimuqraadiyadeynta Puntland uu u ogolaanayaa shacabka reer Puntland in ay codkooda ku doortaan cidda ay u arkaan in ay danahooda ka shaqaynayso, isla markaana dadku ay u madax bannaan yihiin in ay furtaan ururo siyaasadeed. shacabka reer Puntland ayaa aad u soo dhaweeyay qorshaha ay dowladdu ku doonayso in ay dadku codkooda ku doortaan. shacabka reer Puntland ayaa aad u soo dhaweeyay qorshaha ay dowladdu ku doonayso in ay dadku codkooda ku doortaan cidda majaraha siyaasadda u haynaysa,
laakiinse dad badan ayaa su-aalo iska weydiinaya habka ay suuragal u tahay in nidaamka axsaabta kala duwan lagu hirgeliyo islamarkaana shacabku codkooda si xor ah u dhiibtaan, maadaama waqtiga la haystaa uu aada uga yaryahay in howlahaasi oo dhan lagu meelmariyo. Maxamed Yamani, TV-ga caalamiga ee Somali Channel, Kampala.